shacabka iyo waxgaradka degmada Taleex iyo deegaanada hoos yimaada sida Carooley, Bulcadle iyo Holhol ayaa deeq xoolaha oo ka kooban geel iyo ari ay ugu talagaleen ay ku garab istaagaan ciidamada geesiyaasha Puntland ee dagaalka lagu xoreynayo gobolka Sool kula jira maamulka Hargeysa ku wareejiyay guddiga taakulaynta ciidamada ee dawladda. Xoolahan oo gawaari looga soo qaaday deegaanadan ayuu guddigu kula wareegay jiidaha dagaalka gobolka Sool, waxaana ugu horeyn ka warbixiyay xoolaha ay wadaan iyo sida dadka degmada Taleex u garab taagan yihiin ciidamada difaaca Puntland. agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dawladda Puntland Axmed Kayse iyo qaar ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi. xoolaha taakulaynta ah oo bulshada deegaanka Carooley oo ka tirsan degmada Taleex, deegaanka Carooley, Bulcadle iyo Holhol ay maanta ku soo gaarsiiyeen guddiga taakulaynta uguna tala galeen ciidamada difaaca kaga jira aaga Tukaraq iyo dib u xoreynta gobolka Sool. waxay ka kooban yihiin noocyada xoolaha geel iyo ari bay ka kooban yihiin. saddexdii maalmood u dambeeyay waxaanu booqasho ku soo marnay dhammaan degmada Xudun iyo degmada Taleex. shacabka halka degan iyo beelaha halka degan waa dad Puntland ah, waligoodna Puntland ahaa, markii ugu horeysay wax ka dhistay Puntland, waligoodna ahaan doona Puntland. waxay ballan qaadeen oo ay si buuxda uga qayb galayaan iyagoo ka jawaabaya baaqi dawladda, baaqi madaxweynaha, baaqi madaxweyne ku-xigeenka, baaqi guddiga difaaca, iyagoo ka jawaabaya waxay si buuxda diyaar ugu yihiin inay ka qayb galaan difaaca iyo dib u xoreynta gobolada Puntland dhammaantood. annagu xooluhu dadku waa waqti baa dhacay, dhulka wuu ka hayaamay. haddaanu tuuladaanu ku tuulooyinkan ka nimi yahay sidii noobir roob noogama dambeyn. qolo iyo dad yaroo halkaa ku hadhay baanu xoolaha ka soo ururinay. waxaanu ku tala jiraa xoog iyo muruq iyo maal iyo ragba inaanu dawladda Puntland isla barbar taagno. heegan baanu u nahay. waxaana ka mid ahay odayaasha keenay taakulada maanta ciidamada u keenay. waxaan waa horbaxanyo xoolahaas waa horbaxanyo, naf iyo maalba waanu la garab taaganahay maamulka. cabdirashiid maxamed xirsi wasiirka kalluumaysiga dawladda Puntland oo ka mid ah guddiga taakulaynta ciidamada difaaca Puntland ayaa shacabka uga mahad celiyay garab istaagooda, wuxuuna sheegay inay ka mid noqonayaan qaybaha bulshada Puntland ee ciidankooda geesiyaasha garab taagan. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa una soo dhaweynaynaa howlgalka iyo isxilqaanka iyo dadaalka ay galeen beeshu oo garaadku ku hogaaminayo. wixii taakula ah isimada iyo garaadada iyo cuqaashu sidaa ay isu xilqaameen oo taakuladu isaga soo daba dhacayso aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waxaan leenahay lagu daydo oo dhammaan xoolaha hala keeno, raashinka hala keeno, dhiigga hala keeno, dagaalka si dhaba aynu u gallo, aynu u guntanno. waxaan idiin sheegayaa meel walba ciidan iyo xoolo iyo raashin iyo xoolo nool baa ka soo raran oo aan xogtooda helaynaa. waa soo dhaweynaynaa beesha, aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waa birbilowgii garaad mashqare oo ah garaadka deegaankan ayaa maamulka Hargeysa u sheegay inay garab taagan yihiin ciidamada difaaca Puntland, wuxuuna xusay in ka badan 7 shir ay ugu baaqeen inay isaga baxaan dhulka Puntland taasoo ay diideen. garaadkuna wuxuu dhinaca kale ballan qaaday inay sii wadi doonaan taageerada ciidamada geesiyaasha ee dawladda Puntland. dagaalka maanta Tukaraq ka socda oo masayru duulka ah oo maamulka Somaliland ama reer waqooyiga ahi ay halka ku joogaan waa fitmo. cidda kicisay, cidda dhibteeda geysatay waa iyaga. waxaan leedahay balnimayow Soomaali waa diideen oo adduunka waa diideen oo erga waa diideen oo abhin waa diideen. in ka badan 6 shir 7 shir baanu ku abhinnay hadday dad islaama yihiin oo allahood alla yahay inay nooga tagaan meesha. ilaahay baa dhulka iskale, ilaahay nagu beeray. waxaan kale oo leeyahay oo aad iyo aad iyo aad si sharaf iyo maamuus leh ugu mahad celinaya Puntland iyo maamulkeeda doorka dastuuriga ah ay ka qaadatay goboladaas. aad iyo aad bay mahadsan yihiin. dhalasho iyo dhiigna waaba la wadaagaa. armaanta waxaa la qoriyeelkaba wax la qariya waa qaawiyaa timide. armaanta meel adag bay taagan tahay. gobonnimo
iyo gunnimo hal kala doorto. ugu dambeyn wasiir Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa fariin u diray hogaamiyaasha maamulka Hargeysa wuxuuna sheegay inaysan cidna haysan karin dhul aysan lahayn isagoo sheegay in ciidamada Puntland ay ku filan yihiin difaaca dalkooda iyo dadkooda. abhinayna walaalow dal baa leedahay ilaah kugu beera ku eko kuguma haysta kuguna duulimayo kuguna dilimayo kayga iiga tago iiga noqo haddii ingiriis xariiq ii mariya anu ii mariya waa la daadiga kuma marin ma fahmaysaa oo in ummadda ilaa xadka waqtiga laga dhumiyo ma qabo waa cudud iyo calaf cududdiina ciidanna ku filan ilaah baa ina siiyey ilaah baan uga mahad naqnaa wax badan oo inta hadda la isku hayo ka ballaaran waa dadkaani difaaci karaa kuna filan yahay dalkayaga waa ku filan dadkayaga ilaalintiisa Cabdisaaq Xasan Faarax Puntland TV Garowe.